السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan saaka waxaanu ka iftiiminaynaa oo sheegaynaa dhacdo fool xun oo maanta uu geystay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu noogu gafay reer ahaan iyo sharci ahaanba. waxa weeyaan annagu haddaanu nahay salaadiinta Subeer wal annagu mudaharaadna maanaan abaabulayn, annagu xumaanna maanaan wadin, annagu qaranduubisna maanaan wadin. dadka iyagana horena waxbaanu u sheegi jiray, imakana waxaanu u sheegaynaa wax dantooda baanu kala hadlay. hudheelkaasaan u kiraynay Mansoor madaxweyne ciidan baad hor dhigtay, waanu iskaga tagnay, waxaanu isniyaal isjiijiidanin. dadka iyaga wixii aanu u sheegaynay nuxurkii aanu u soconayna xalayna 10 kun oo ciidan aad gelisay calaa guri. maanta waxa hor taagan gaari ciidan, hadday tahay Koodbuur, hadday tahay 16 Juun, hadday tahay gacan libaax. saaka ciidankii jiida hore qaranka difaaci lahaa ciidan ka badan baa lagu daadiyay aqal wal oo maanta Subeer wal leeyahay ciidan baa hor taagan. annagu nabadgelyo darro horena uma naawdin, maantana ma wadno. dadka iyagana waxaanu dhisi salbiya halka u kaalay. dadka iyagu waa dad goba, dadka iyagu waa dad qarannimada jecel, dadka iyaga annagu xumaan uma sheegno, dadka iyaga annagu ma nidhaa xabadda isu dhiga, dadka iyaga annagu siidho ma afuufno. waxaanu sheegaynaa annagu arrinka iyagu wuxuu ahaa halka inaanu dadka iyaga wanaag ugu sheegno. saakana dadka iyaga annagu xumaan u sheegi mayna, xabadda isu dhigana odhan mayno. waxaanu leenahay dadka iyaga 100% waa mahadsantihiin. waxaynugu dhacayna waa dulmi, waana badheedh, waana la isaga dambayn doonaa. madaxweyne xumaana aanaan kuu qabin ayaad saakana gelisay. waxaad ka heshaa dee leed anaga waxba ha naga siin. ciddaad laynaysana laa, ciddaad buufinaysana buufi. taa waad inoo xeertay. waxa weeyaan dagaal cusub ood inoo bilowday, waana kow bay inoo tahay. waxa kaloon ka hadlaynaa annagu arrinkan 3 bilood baanu ku jiray, in badan baanu ku soo jiray. arrin dhexdayada abooha xildhibaanna hadday tahay, hadday salaadiin tahay, hadday ugaasiye tahay, halkaa guriga Subeer walba muddo ka socday. dadka iyagaanu isu jiidayno. waxay noqotay taladii markii arrinkii farangaaga yeeshay inaan reerka iyaga furfur iyo tafaraaran ku dhicin, inaanu dadka iyaga wax u sheegno baanu u soconay. annagu xubaan kale umaanaa socon. warmurteedkii aanu diyaarinayna halkan suldaanka ayaa ka akhri doona. waxaan leenahay nimanka gudoomiye ku-xigeenka salaadiinta, gudoomiye ku-xigeenkayga Mr. Suldaan Qabili ayaa halkan ka akhri doona. waxa kaloon sheegaynaa waxa la yidhi shimbiri maalin bay dab qaado mina lay gubtay. rag baan arkaya xalay nimaanu saaxiib ahayn oo dagaal la wada galay, aadna isu dhaqaan, ayaa xalay lahaa meel baan qufulaya. waxba baad qufulina horgalbaad haydo rag ciil kuu qaba oo reerkaaga ciil u qabaad soo horgashay. haddaad wax taraysana shalay in adeerkaaga madaxweynaha adigoo Ismaaciil Shiriila ayaa gacan libax ku karaysatay. imikana horgalbaad tahay, dadkana annagaa matala. adiga iyo inta hadashay toona waxba ma matashaan. waxa weeyaan dariiq loo soo maro reerkiina inaad noqotaan. marka horena dariiqii la soo maray baa haydeen, saakana qurux idinka kordhi mayso. dadka iyagana guul iyo gobonni baan u rajaynaynaa. isu soo bax maanta la celiyeyna dad maanta annagu rag ku daalaya iyo reer ku kala furfurmaya ma jiro. Subeer walla waxaan ugu baaqaynaa waxa inoo ballana midnimo, isku duubnaan iyo inaan layna kala furfurin. waxaa loo socdaa waxa weeyaan in la kala furfuro reerka. ta xusbiga annagu dee golo dhexe maanaan ahayn. saaka waxa ayaan darra ah in xusbiga calankii kulmiye ciddii lagu arkay in saaka la garaacayo. waxa sababay raggii Subeer wali ku matelayay xusbiga kulmiye ku matelayay reerka inaad dabada gelisaan wadani oo saaka dadkiina la garaaco, idina halkaa ku dambaysaan. waanu idin eegaynaa. dalkana waxaanu leenahay guul iyo gobonni baanu idin rajaynaynaa. cid kastoo godob naga gashayna waanu ognaho way noo calaamadsan tahay. raggaanu hore isu haynay isu calaacali mayno. raggase maanta dariiqa ka leexday, tulkood ka leexday iyo kuwii hore u leexdayna waxaanu leenahay